السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سجداشيدا ku aragtid waa hooyo Soomaaliyeed magaceedu waa Sacdiye Tahliil. Maanta ayaa waxaan arkay video ayada ay leedahay laga soo duubay wareys laga soo qaaday gurigeeda lagu booqday. Waxaan ka dhex arkay iyada iyo gabadhan yar ay dhashay masha Allah. Iyo gurigooda oo lagu sheegay calaashan inuu shimil galay ama gurigu caariyeystay. sidoo kale muddo 6 bilood ka badan aysan haysanin vaamvasa ama biyo kulul ama biyo diiran. sidoo kale inaysan haysanin sababtan lagu sheegay calaashan biilaantaas ay ku dhacday haydsunka inuu yahay mid kharbaan ah. haydsunkan uu ka halaysan yahay. shirkadane ilaa hadda aysan dayactirin ama aysan toosinin. xitaa wariyaha soo sheegay in shirkadda iyaga la xiriireen shirkadda aysan u soo jawaabin. marka gabadha xitaa waxay sheegtay ilmaha markay u qabeynayso inay biyo diiran ay biyo soo kuleysato oo qaybtan kuukarka ama hayadka inay ka soo kuleyso kadibna ilmihi ay ugu qabeyso. markii jarmalka qaar ama han noqoto shirkadii waxay dhaheen Africa ka imaatay because Africa noloshan caadi amal waa lagu nool yahay. jawaab fiicanna weysiis waxay tiri Africa qabow ma jiro biyo kulul looma baahno. marka jawaabtii ku filneeday siisay. marka gabadhan videogeeda maalmahan wareegay oo maanta muddo marar badan arkay TikTok dhexdiisii. marka shimilkana waa lebensgefährlich because qofka noloshiisa ayuu qatar ku yahay. waxaa laga yaabaa inuu qofkii naqaska ku dhago sambabada inay wax ka gaaraan sida hadda gabadhan yar ilmo kale haysataa like weydiid kaamirada inay soo dhigto. gabadhan yar hadda dhakhtar waa ninkan la taagan oo Kinda Arts wuxuu sheegay cunugta in sambabaheeda calaashan lungaha in gaqawsh laga maqlo calaashan dhawaaq ama shanqar saasay tahay daawo inuu u qoray. marka mar uu ka hadlay had shimilka oo dhibaatada ilmaha uu ku keeni karo dadka waaweyn inay tahay inuu naqaska ku dhago oo qaybta hawo mareenka inuu ka haleeyo. marka hadda gabadha gurigaas ay ku nooshahay muddadaasi oo bila haydsunka ah bila vaamvasaha ah. marka reer Hessen Soomaalida ama jaaliyada reer Hessen gabadha Soomaaliyeed hooyada ah caruurta haysata halo gurmado. winterka hadda aan ku jirno maalmihii la soo dhaafo waa aragteen baraf badanaa da'ay. qabowga zaa'id u ahay -10 uu ku dhawaaday ama uu gaarayba. marka hadday -10kaasi ay guriga kaga nooleed haydsun la'aan ama ay biyaha kuleelsada ay ku kuleelsanaysa biyo kulul uusan lahayn meeshii ilaan alaabta la dhaqaayay qabow tahay. wax walba qabow ay yihiin xitaa gabadhi waxaa laga yaabaa inay gacmihii wax ka gaareen qabowga waa aragteen cijuhu dadka tiraa. marka gabadha haloo gurmado reer Hessen idinka meesha ku dhow jaaliyad Soomaaliyeed ayaa tihiin. qofka dhibaataysan waa caawin jirteen hala caawiyo. gabadhan ilmaheeda ilaa hadda daysan helin haydsun because dhibaato badan ay ku jirtaa haloo gurmado insha Allah. khayr badan. Assalaamu calaykum.